kulanti waxaan wanaagsan khiyaartan ka daawataa janaalada ilaaska xogaha iyo sidoo kale tusmada filmada si wada jira halabadaan janaal hadoona kale waxaa idinku soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay maanta laga qoraarmaha koonfurta ee Bollywoodka kuwaas oo la xiriira xanta jilayaasha filmada soo baxay qorshooyinka filmada teatrasana ku goosgoosada heesaa laga soo bandhigay iyo waxyaabaha sanana la baxay leeyihiin oo wala wadaag kartiin daawadaashana ku tixan barta tusmada filmada iyo soo kale barta kale ilaaska xogaha meel baa joogtaan hawada waxaan idin kale nahay maalin wanaagsan ku soo dhawaada akhbaaraadkeena ayaa waxaan ku bilaabi doonaa filimka Rocky Oraniki Prem Kahani muuqaalkiisa kooban ayaa waxaa la sheegay in lagu lifaaqi doono xilliga la soo fasaxi doono filimka xiisaha leh ee Adi Burush kadib markii la soo saaray kaartada Rocky Oraniki Prem Kahani taas oo ku aadaneed bishan ka soo gudubnay xilliga ku beegnay dhalashada Karan Johar ayaa filimkaas wuxuu noqday film laga dhaahday mid hadalhayn badan la imaaday taas oo ku saabsan film armaha jaceylka ee shactirada wuxuuna film qof walba ee suglaada in lagu soo fasaxo saashadaha si ay u daawadaan mar kale film ka soo wada muuqdeen Ranveer Singh iyo soo kale Ali Abad markan ayaa filmka xiisiisa kor loo qaaday kadib markii la sheegay inuu hortay qolada filmada faafreebaan ee muuqaalka kooban taas oo directorka Karan Johar waxaana la sheegay in qolada filmada faafreebaan ee soo aqbaleen muuqaalka kooban waxaana soo kale sheegay in filmkaasi muuqaalkiisa kooban aan la soo fasaxi doonin June 16 taas oo la rabo in lagu lifaaqo Barabas Kritisano filmka hogaamiye ka yihiin ee Adi Burush film soo saarayaasha Rocky Oraniki Prem Kahani ayaa waxa ay soo dhigeen waraaqad cadeynaysa in filmku ku saabsan arrimaha shactirada iyo jaceylka inuu hortagay qolada filmka soo kalena filmka Barabas iyo Kritisano ee Adi Burushna uu yahay mid asna kala hore qolada filmada faafreebaan ay hortageen muuqaalka kooban ee filmka Rocky Oraniki Prem Kahani ayaa wuxuu soconayaa 1 daqiiqo iyo 19 second taas oo sidoo kale muuqaalkaasi aan weli soo fasaxitaankiisa aan la dhameystirin iyadoo wararka ay sheegayaan in filmka Adi Burush lagu lifaaqi doono arrintaas noqon doonto warar been abuura Rocky Oraniki Prem Kahani ayaa wuxuu yahay mid ka dhigaya markii labaad inay wada shaqeeyaan Ranveer Singh iyo soo kale Ali Abad kadib markii filmkooda guuleystay ay ka wada shaqeeyeen Gully Boy kaas oo ku saabsan arrimaha raabka waxaana soo kale dhacday in labadan mar kale film ay ku midoobaan filmkan ayaa sidoo kale wuxuu yahay mid la isku keenay jilayaasha ugu caansan Hindiya sida Dharmendra Zabana Ajmi Zaya Bakshan waxaanu yahay film ay soo saarayso shabakada Dharma Production waxaana director ka Karan Johar taas oo muddo 7 sano kadib oo dib u fadhiisan doono kursiga film directornimada ama film inuu director ka noqdo waxaana sidoo kale filmkan lagu wadaa in la daawado July 28 ee bisha socotay 2023 halkan film Adi Burushna wuxuu yahay film lagu wado inuu wacdaro ka dhigo qaybaha teatrada wuxuuna film hogaamiye ka yahay Barabas Kritisano Saf Alqan Defenage iyo sidoo kale Sanasin waxaana filmkan lagu wadaa in la daawado 16 June taasoo luqadooyin kala duwan filmka lagu daawan doono waaga daawadna kan waxaan isla eegi doonaa xidiga Sanidol ayaa markan wuxuu la imaaday muuqaalka kooban ee filmka Gadartu taas oo qof walba uu kaga yaabsaday Hindustan Zindabad he ta orhega ayaa dialogan wuxuu ka mid yahay dialogada ugu caansan ee filmka Sanidol ee Gadar taas oo macnaheedu yahay Hindiya waa noloshahay wana noolaa doonta wuxuuna yahay film wacdar ka dhigay qaybaha teatrada markan ayaa waxay noqotay in dib loo milicsado filmkaas iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay iyadoo maantana muuqaal kooban laga soo fasaxay ee filmka Gadartu taas oo la arkay in Tarasino dib u soo laabtay ee doorka xidiga Sanidol taas oo action u dhameystiran asoona Hindiya ka badbaadinaya qolada nacab kuwaas oo rabaan in ay sameeyaan oo la ka dhana in Hindiya ay burburto taas oo keenaysa inuu ka hortago xidigan kala hore ka soo jeeda Pakistan ama uu yahay wiil oo dhalay nin reer Pakistan Gadar ayaa wuxuu yahay doorkiisa mid qof walba taabasho ku leh sidoo kale sheekada filmka Tarasina ay waxay tahay mid jacayl wada qaadeen asagoo sidoo kale uu yahay film xiiso leh wuxuuna film ku saabsan qaybtii koowaad 1971 xilligii kala qaybsiga ee gobolada dalka Hindiya wuxuuna yahay film xiiso asoo muuqaalka maanta la soo fasaxay oo uu socday 1 daqiiqo iyo sidoo kale 9 second wuxuuna yahay film xiiso leh Gadartu ay wuxuu muuqaalkiisa kooban ku bilaabanaya hadal kaas oo ah wiil reer Pakistan kaas oo la hor dhibaatooyinka ka dhacaya ka hortagaya asagoo yahay film xiiso leh filmkan ayaa wuxuu yahay mid aad u xiiso badan
Sanadol ayaa alaab wuxuu la imaadaa muuqaalo dadka ay aad ugu helaan alaabna wuxuu yahay mid taageerayaashiisa saameyn ku dhex leh. Filimkan ayaa wuxuu yahay mid lagu wado in la daawado 11 Agoosto, kuwaas oo isku dhici doona filimada Animal iyo filimka kale ee uu hogaamiyay Akshay Kumar ee lagu magacaabo Oh My God 2. dhinaca kalena waxaan isla eegi doonaa directorka filimka Animal ee Ranbir Kapoor hogaamiyay wuxuu sheegay in filimka Animal uu noqon doono filim dhibaatooyin ba'an la imaan doona ka daran filimka Kabir Singh, kaas oo kala hore oo director asiga uu ka ahaa. kadib markii Sandeep Reddy Fanga uu ku dhawaaqay filimkiisa labaad Animal inuu la shaqeyn doono Ranbir Kapoor ayaa wuxuu noqday mid hadalhayntiisa kor u kacay, kaas oo internetka qabsaday. waxaana muuqaalka soo fasaxitaanka hore ee muuqaalka kooban ee axad la soo fasaxay ay wuxuu noqday mid xiiso u yeelay filimka. Ranbir Kapoor ayaa wuxuu noqday mid daawadaashiisa ay ka heleen qaabka uu yahay mid cadow samaysan, soo kalena cadowga kula dagaalamayo maqar, taasoo gacanta uu ku sitay, wuxuuna yahay mid ka dan marka la fiiriyo qaabka dhibaatooyinka uu geysanaya Shahid Kapoor filimkiisa Kabir Singh. waxaan arrintaasi qeexay directorka filimkaas. markaan dib ugu laabano Animal ayaa wuxuu ahaa mid inta uusan ku dhawaaqin directorka Sandeep Reddy Fanga inuu ka hadlay filimka inuu noqon doono filim dhibaatooyin badan lagu soo bandhigi doono, kaas oo ka daran filimka 2019 la daawaday ee hitka noqday ee Kabir Singh. wareysi kale hor uu bixiyay ayaa waxa uu internetka qabsaday oo dib loo soo rogal celiyay, taas oo wareyskaas uu leeyahay Anupam Chopra. directorka ayaa wuxuu ballan qaaday in filimkan uu noqon doono filim dhibaatooyin baan lagu soo bandhigi doono sida filimka dhibaatada dhexda ka gala ee dadka badan iska naqdeen ee Kabir Singh. wuxuu sheegay in la arki doono sida dhiig badan loo qulqulin doono, isagoo dhibaatooyin iyo takrifal badan filimkaasi gudihiisa loogu geysan doono. wuxuuna sheegay in uu been uu dhihi doono filimka kale ee Kabir Singh. filimkan ayaa la arkaya xidiga Ranbir Kapoor muuqaalka kooban in uu yahay mid uu dadka u adeegsanayo dadka u adeegsanayo inuu ku laayo maqar, taasoo gacanta uu ku sitay dhiigna uu ka da'ay. filimkan ayaa xiiso leh iyagoo jilayaal waaweyn dhinaca kale isku keenay sida Bobby Deol, Rashmika Mandanna, Anil Kapoor iyo Tripti Dimri. wuxuuna sidoo kale uu yahay filim loo jadwalay in la daawado 11 Agoosto 2023, waxaana isku dhici doonaan filimka Sandeep ee Gadar 2. ugu dambeyn daawada waxaan isla eegi doonaa filimka tiyaatarada saaran ee Zara Hadke Zara Bajke, kaas ee lacag oo la imaado isbuuciisa labaad ee 3 maalin. filimka Zara Hadke Zara Bajke ayaa wuxuu noqday mid korkac sameeyay axadiisa labaad, taas oo ka dhiganta filimka inuu korkac u ka sameeyay dhamaanba qaybaha Hindiya ee filimkan laga daawaday, taas oo ka dhigaysa in isbuuciisa labaad 3 maalin filimka oo la imaado 15 crore, taas oo u dhiganta dollar ahaan 273,401 ee doolarka Mareykanka. filimka awaartiisa guud ee 10 maalin waxay ka dhigaysaa 52 crore, taas oo u dhiganta 915,101 ee doolarka Mareykanka. filimkan ayaa wuxuu ka dhigayaa mid ku wajahan ilaa 70 crore inuu la imaado, taas oo noqonaysa filimka mid u fiican. bataan ayaa filimka lala imaado ee January ayaa wuxuu noqday filim hida, sidoo kale filimka labaad ee June lala imaado waa filimkan asagoo labada hid ugu waaweyn sanadkan muddo 5 bilood gudahooda. waxaa jira sidoo kale in The Carol Story oo noqday filim kale oo guuleysta saate marka loo fiiriyo filimka in lacaga waaliha lagu qarsh gareeyay ayaa loo fiirinaya filimka in uu noqday filim guuleystay. filimkan ayaa hadaba isla eegi doonaa Zara Hadke isbuuciiskood wuxuu leeyahay 36.38 crore. اسبوع جمعة سلام فيلم كحول ما هذا 6.25 كرور. سبدي سلام فيلم كحول ما 5.50 كرور. شلو أحد فيلم كحول ما هذا 6.7 كرور. تاس أو دولار هانو لجنتا بقول تمسكالكون لحن لبا دولار كمريكان كا سيد جود أسبوعي سلام استحمانا وحلي ما 8.50 كرور. تاس أو لجنتا لو بقول 3.6 أفر بقول كو دولار كمريكان كا سيد جود فيلم كلا أسبوع وكنت نكو ربع 6 كرور. تاس أو لجنتا صار بقول 8 بقول كو دولار كمريكان كا inta aynu kusoo kabana daawada muuqaalada warbixinada maanta aan waxaan ku xiisaha badan oo la wadaagi karteen daawadaashina ku taxan barta tusmada filmada iyo saqal barta kale ee isku xogaa hada warbixinada ka shaleegno soo saxabtina wadaaga wadku maasantiin Allah subhanahu muuqaalada oo daawataan kankiisa xigana fi amaan illah.